waxaa macquul ah inaad daawatay filmaan lagu jilay robot sida bini'aadamku u fakaraya iyo dad caadi oo dagaalamaya iyadoo robotku dhibaato u geysanaya dadka. Haddaba maanta waxay u muuqataa in dunidu cabsi wajahayso maadaama aaladahan casriga ay gaareen heer ay si madax bannaan u qaban karaan shaqooyinkii uu bini'aadamku qaban jiray, balse mararka qaar ay suuragal tahay inay qaban karaan wax uusan awoodin bini'aadamka. Farsamooyinkan casriga ayaa laga cabsi qabaa inay gaaraan heer ay qaadan karaan go'aano ka madax bannaantii bini'aadamka. Shir madaxeed caalami ah oo ka dhacay magaalada Seoul ee Kuuriyada Koonfureed ayaa looga hadlay muhiimadda ay leedahay in laga ilaaliyo aaladda AI-da in loo adeegsado dhinacyada militariga. Madaxda ayaa walaac ka muujiyay in farsamooyinkan casriga ay sababi karaan dhibaatooyin soo wajaha nolosha aadanaha haddii aan la xakamayn. Ka sokow dhibaatooyinka la xiriira isku milanka runta iyo beenta iyo in aaladahan ay dad badan u adeegsadaan inay ku sameeyaan warar ama muuqaalo aan xaqiiqada ku salaysnayn oo qofka daawanaya ama akhristaha ay adag tahay inuu aqoonsado, ayaa haddana madaxda caalamku waxay walaac ka qabaan in adeegani uu u soo diso dhanka militariga, taasoo ay u arkaan inay halis ku noqon karto xasiloonida caalamka. AI-da ama artificial intelligence-ga ayaa horeba looga faa'iideystay howlgallada militariga sida sahanka iyo xog ururinta. Waxaa sidoo kale la aaminsan yahay in Israa'iil ay aaladda AI-da u isticmaashay howlgallo ay ka fulisay magaalada Gaza oo ay uga soo horjeedeen ururka Xamaas. Nidaamka ay adeegsatay ayaa la sheegay inuu awood u leeyahay in uu bartilmaameed ka dhigto shakhsiyaad iyo goobo cayiman. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa kol hore sheegay in awoodda caalamku noqon doonto sida loogu kala horumarsan yahay adeegsiga AI-da. Dunida ayaa ka walaacsan in AI-da ay awood u yeelato maamulka hubka waxkumaada ee nuclear-ka, taasoo ay u arkaan inay halis ku tahay caalamka. Baaq laga soo saaray gabagabadii shir madaxeedka socday labada maalmood ayaa looga digay halista in aaladda AI-da loo isticmaalo hubka waxkumaada ee nuclear-ka. Shir madaxeedkan ujeedkiisu ahaa sidii si mas'uuliyad ku dheehan tahay loogu adeegsan lahaa aaladda AI-da dhinaca militariga ayaa waxaa ka soo qayb galay madax ka socotay in ka badan 90 dal oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Shiinaha. Waxaa sidoo kale shirkan qayb ka ahaa ku dhowaad 2,000 oo isugu jira saraakiil dowladeed iyo khubaro. Warmurtiyeedka gabagabada shirka ayaa lagu booriyay in si wanaagsan uu bini'aadamku ugu lug yeesho horumarinta iyo adeegsiga adeegga AI-da ee dhinacyada militariga. Warmurtiyeedka ayaa hoosta ka xariiqay in muhiimadda ay leedahay in awoodda adeegga AI-da ay noqoto mid bini'aadamku xakamayn karo. Madaxdii ka qayb gashay shirka ayaa isku raacday in aaladdan AI-da loo baahan yahay inay noqoto mid taageerta oo aan uga darin dadaallada maamulka iyo xakamaynta hubka. Madax kala duwan oo ka hadlay shirka looga hadlayay arrimaha ku saabsan aaladda AI-da ayaa waxa ay siyaabo kala duwan uga hadleen dhibaatada ay suuragalka tahay in ay sababto farsamadan casriga ah ee maalinba maalinta ka dambaysa ay dunida sii horumarinayso, waxaana laga cabsi qabaa in haddii aan la xakamayn ay suuragal tahay in ay ka gudbaan xayndaabkii xakamaynta bini'aadamka, taasoo sababi karta in dunidu ay wajahdo dhibaatooyin ay gacantooda ku samaysteen.